shaqadan Universal TV ku soo dhawow kadib waxaad faahfaahin yar oo hordhac yar naga siisaa buugga soo bandhigtay dhawaan Baydhabo wuxuu waan dhawahay assalamu alaykum shaqaalaha TV-ga iyo mas'uuliyiintiisaba buuggaas waxa weeyaan buug ka hadlaya sooyaalka taariikhda gumeysiga ee Soomaaliya aqoon-yahano fara badan ayaa hore wax uu qoray ani ma ihi qofkii ugu horeeyay wax ka qora laakiin dadkii uu sii horeeyay waxa kamid ahaa Professor Mahad Haji Mukhtaar ayaa kamid ahaa nin la yiraahdo raxmatullaahi calayhi hadda waa geeriyooday Sheekh Jaamac Umar Ciise la wax ka qoray iyo aqoon-yahano kale fara badan ee Soomaaliyeed ayaa hore wax uu qoray saasoo kale yani gumeysaha qodiisi wax buu ka qoray haddii ay tahay Talyaaniga Faransiiska Ingiriiska dhamaantooda wax bay ka qoreen marka aniga waxa ay ugu dhaliyay waxa kamid ahaa yani taariikhdu markay 2000 ayaa ka hor yani 2000 wixii ka dambeeyay ayaa waxaan akhrinayay taariikhda Soomaalida wixii ka horeeyay gumeysiga marka waxa aad ila muuqatay in quruxda iyo nolosha aad u qiimo badnayd xilligii gumeysiga ka horeeyay oo Soomaalida beriga isku filaasho taam ay qabeen haddii ay yihiin xoolo dhaqatada inta ugu badan bay ahaayeen yani deegaano kala duwan bay u kala guurguuri jireen si nabadan waa lagu wada noolaa maamulo oo waxa weeyaan oo maxalli ah oo local ah oo ayagu ay leeyihiin ayagu ay ka taliyaanba ayaa xukumi jiray gobolada gudaha xeebahana waxa weeyaan boqortooyooyin yaryar baa ka jiray waxyaabaha oo city states la dhihi jiray dawladatul mudun marka ayana ganacsi haday tahay hadii beer ay tahay hadii hawlo dhaqato ay xirfad ay tahay Soomaalida isku filayaan waxa ay dibadda ugu baahnayeen ma ayna jirin saas ay tahay cilaaqaad fiican way la lahaayeen xadaaradihii beriga jiray markii gumeysiga yimid waxa weeyaan gumeysiga wuxuu naga dhigtay suubu naga dhigtay iyo waxa weeyaan maadada cayriinka wadankeena ka baxday inuu soo qaado marka beeri asaa la wareegay warshada asaa la wareegay noloshii marka ciriiri fara badan baa ku yimid ilaahay ta waxa dhacday in xariga xoolaha la xirto dhar in la waayay afartameeyadii marka culaabtaasi culaysaasi jiray darteed ay ugu dhaliyay inaan wax badan ka bidhaamiyo gaar ahaan yani daada soo socota jiilalka soo socda in wax badan aan u bidhaamino ayaa igu dhaliyay waayahay marka iyadoo wax badan wax laga qori karo oo taariikho badan kale ay jiraan maxaa si gaar ah ugu dooratay oo waxaad is leedahay oo laga faa'iideysto ama wax laga barto oo ugu muhiimsan oo ugu waaweyn maxay yihiin waxa weeyaan horta waxaan beegsaday asagu uma horeeyo taariikh oo gumeysiga ka horeysay baan wax ka qoray meel aan waxba aan laga bilaabin oo qorayaasha qalinkoodii aan taabanin ayaa hadda ka hor aan beegsaday marka taariikh 300 sano u noqota oo ah magaalada Baardheere iyo yani maamulka islaamiga meesha ka jiray iyo jamaacadii ka dambeysay cilmiga faafinaysay ayaan wax ka qoray marka xilligaas markaan wax qoraayay ayaa waxa aad u ogaaday noloshii ka horeysay ee gumeysiga marka taas daraadeed gumeysiga hadda waxaan u beegsaday waxa ii muuqata in yani muhiim ay tahay in laga hadlo 70 sano yani 1890 ilaa 1960 marka dhibaatadiisa taagan ilaa hadda dhibaatadiisa taagan si fiican loogama tashanin asagana Soomaaliya sidii la rabay uma gumeysanin Soomaalidana xorriyadeeda kama faa'iideysanin marka ciladahaas jira darteeda waxa weeyaan in dhibaatada hadda jirta waxa asaas u ah gumeysiga asaas u ah marka systemkii Soomaalida u nooleed horeen waa laga soo tagay kana si fiican loolama qabsan wasoo loo qabsan waxa kamid ah gumeysiga asaa isku dagaalay Soomaalida dhexdeeda marka ujeedooyin fara badan oo kala ahaa ayaan hirgelin marka sida dalalka oo si degan looga tagin anagu ma nihin oo meel fiican la gaarsiiyay oo waxa weeyaan nidaamka European lala qabsan ma nihin
dadkii sidoo hore loo dhaafayna ma nihin marka taas daraaddeed dhibaatada maanta Soomaaliya ay taal waxaa sabab u ah juduurteedii iyo xididadeedii hore waxay ku noqotaa gumaysiga marka gumaysiga waa in la badhaamiyo waa in la sheegaa waxaa kaloo jirta yani ilaa hadda dad badan aan fahansanayn oo ay u arkaan beentii gumaysigii sheegay oo ah inay Afriku marka hore wuxuush ay ahayd isaga bani aadan ka dhigay beentaasi oo gumaysiga akhriyay ya dad waxa laga yaabaa inay rumeeyaan marka taas daraaddeed in anagu aan nahay dad faadil ah sharaf badan gumaysiga aanan ka liidanin laakiin waa la kala adkaan karaa yani Soomaaliya waxay ku maamahada yani boodi rege waxa maalin mid baa qaawan niba maalin bay tabaad haysaa marka taas ay u dhalisay in taariikhdaasi la sheego si Soomaalidu ay u fahanto isla markaasna waxa dhaqankeedii suubanaa oo sooyaalka iyo diinteedii islaamku in la ogaado inay tahay waxyaabo ugu wanaagsan in ayadu ay ku noolaan karto mashaakilkeedina xal u noqon karo okay marka gumaysiga Soomaaliya oo dhan Talyaanigu ma wada haysan haba badnaata koonfurtan marka maxusaya sida Ingiriiska oo kale qaybihii isagana uu maamulayay bal maxay farqiga u dhaxeeyay labadaas dhinac ee Soomaaliya u kala qaybsanaa gumaysiga reer Yurub markii laga hadlayo laba qaybood baa loo kala qaadaa kii Boortaqiiska oo qarnigii 16aad ahaa kaas marka waa xalis uu ku lahaa waa gumaysiga soo nooleeyay dawladdii boqortooy la dhigi jiray Al-Habasha Habashiin waa ninka soo nooleeyay oo Soomaalida ku diray Habashada iyo Soomaalidu gobolka Geeska Afrika ay ku wada noolaayeen si nabad ah lagu wada noolaa dawladaha islaamka oo dunida kale ka jiray awood faraha badnaan ma beegsan jirin xadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri baa jirta da'ul habashata ma wada'ukum watruku turka ma tarakukum yani labada reer in la dagaalo rasuulka ma dhiirigelin wuxuu yiri habashada iska dhaafa inta ayagu idin dhaafeen turkigana iskaga taga inta ayagu idin ka tageen marka taa ayadoo ay jirto ayaa colaadaas Boortaqiiska soo nooleeyay oo shucuubta Geeska Afrika sa isku diray marka dagaalkaas waxa yani galay geesigii Allah u naxariistay Imaam Ahmed Gurey ayaa ka dagaalamay guulo fara badan uu ka keenay markii dambe waa la jibiyay mar labaad nin amiir noo la yiraahdo ayaa waxa weeyaan dib u bilaabay Boortaqiiskana Ilaahay baa meesha ka saaray marka dalalkaas Afrika gumaysiga cusub anagu 3 dal ayaana gumaysad buugu ka hadlaya France oo haysta waxa weeyaan Somali Coast dhulka la dhihi jiray oo Djibouti hadda loo yaqaano iyo Somaliland British Somaliland la dhihi jiray waa gobolada waqooyiga Soomaaliyeed oo Hargeysa caasimad u ahayd ka horna caasimad u ahayd Berbera iyo gobolkan koonfurta loo yaqaano Calula isku shuban ilaa Boosaaso ka soo bilowda ilaa meelahaas ku eg marka guud ahaan intaas uu ka hadlaya kadib gumaysiga Soomaaliya wuxuu kala qaybay 5 qaybood oo qaybiyay 2 qaybood ilaa yoomina hada Ingiriiska waxa ugu deeqay Ethiopia waa Soomaali galbeed 9 gobol waxa ku nool dad 7 milyan ka badan iyo gobolka NFD la yiraahdo National Front Districts laga soo gaabiyay NFD National Front District ana degmooyinka furanta hore goboladaas ma yara waa taqriiban 6 gobol ay ku dhowdahay waa 3 gobol oo Soomaalida khaalis u ah waa Mandera iyo waxa weeyaan Wajeer iyo Garissa oo gobolo waaweyn iyo Moyale iyo Marsabit iyo Siolo oo Soomaalida qayb ahaan ay u degto marka dhulkaasi dhan waxa weeyaan waxa looga deeqay Ingiriiska looga deeqay Kenya Ingiriiska ayaa wuxuu ugu deeqay yani Kenya taasina hooyn anaga kaleema dalka Afrika dhan ayuu saas ku sameeyay waxa looga talagalay waa khudar reer Yurub ay lahaayeen si Afrika markay xuruudo aan nabad u helin oo markasta ay taagnaato colaada xuduud u dhaxaysa qaacidis waxay ahayd Arab loo yaqaano farq taswit waa divide and rule
yani qaybi oo xukun marka dadka hadaan la qaybin lama xukumi karo marka buugadaas uu ka soo hadlaya marka waxa weyn noocyada gumaysiga iyo dalalkaasi oo dhan uu ka hadlaya waayahay in buugaag la qoro waqti bay qaadanaysaa caqabadaha dad ka hor imaan karo bal marka hore waqtiga kugu qaadatay in buuggan aad qorto taariikhdiisa bal wax nooga sheeg buuggan fikir ahaan waxa weyn 2007 igu soo dhashay 2008 wax baan ka qoray kadib waxaan kaga mashquulay barnaamijkan baar dheere hadda 3 sano ay u qaadatay marka buug markii la qoraayo asaga 3 nooc ah in ninka qoraaga uu qoro uu ka hadlaayo shucuurkiisii dareenkiisii tajaarubtiisii dhacdo uu soo maray taas waxay ku xiran tahay shucuurkiisay ku xiran tahay iyo dadaalkiisii culays badan ma laha midna waxay ku xiran tahay mowduuc wax badan hore loo qoray dadka magaalada Makal Mukarram wax loo qoray hadii maanta la yiraahdo yani alaaf malaayiin kutub baa laga qoray marka hal maktabad inaad tagto ay kaaga xiran tahay waa baxthi cilmi ah oo ay waxa weeyaan isla markaasina leh tixraac waa reference afari waxa lagu yiraahdaa al maraajic wal masaadir wixii hore waxa la yiraahdaa masaadir wixii 100 sano ka yarna waxa la yiraahdaa maraajic marka buugtaas in loo laabo waxna waxa weeyaan waa daraasa meedaaniya oo mowduucidina ayna kaaga horeynin oo hadda imanka adiga aad bilowday oo dadka maskaxdooda ay ku haayaan laakiin aan la record gareynin marka taas waxay u baahan tahay in waraysi badan la yeesho dadkii khubara goob badan la tago marka laakiin kan had waxa baa ka bilownaa yani inkastoo buug badan aan laga qorin haddana wax badan baa buug far badan baan helnay saas oo kale waxaan waraysi badan aan la yeelanay yani dadkii gumaysiga soo gaaray oo dad ilaa يعني 60 qof ka badan taqriiban yani buuga hadda waxa weeyaan waxa laga heli karaa saan filaayo yani dadka anagu aan wareysanay oo wareysi aan la yeelanay oo buugta aan tixraanay ma waxa weeyaan ilaa taqriiban 30 qof ilaa 40 qof waxa weeyaan meesha ku xusnay ama maraajicda buugta waxa ka soo qaadanin waxa weeyaan ilaa 100 buug way ka badan tahay laakiin waxaan aad tarkiisinay odayaal hore iyo rag far badan maamuladii soo maray dadka aan wareystay waxa kamid ah 62 nin gudoomiye degmo ka ahaa magaalada Boosaaso oo la yiraahdo Barkhat Ali Saalax 62 waa gudoomiyihii markii magaalada degmo laga dhigay Bandar Qaasim baa la dhigi jiray Boosaaso markii degmo laga dhigay waa gudoomiyihii labaad markaan wareysayna waxa joogay gudoomiyihii 23aad marka odaygaasi siyaasadda Soomaaliya military iyo xagga bulshada yani civilian ahaan ku soo jiray oo rog cadaa ah ayaa kamid rag aan wareystay waxa kamid ah Shaacib Dheere oo la yaqaano waxa weeyaan Shaacib Dheere waa ninkii maxaakiimta islaamiga ku lahaa 9-meedii ilaa hadda maamulka dawladda ku jira qaybaha garsoorku ka shaqeeya dadka aan wareysanay waxa kamid ah nin la yiraahdo yani din waxa maadaama ay yihiin qoladan biimaalku ay yihiin yani Sheekh Said Xasan nin la yiraahdo oo oday ah biimaalku waxa weeyaan waa dadkii qabaa'ilka banaadir ugu daran bay ahaan 15 sano hortaagnaa gumaysiga Talyaaniga marka dhib fara badan waa la soo maray dadka aad ku tuhumaysay inay wax ka hayaan taariikhda aad qoraysay helitaankooda ka waran saa ku heshay dadka in la helo ma sahlana مثلا nin la yiraahdo Faarax Qare oo ciidamada Mariniska Soomaaliya ka jiray ma aqaan ilaa hadda Mariniska ilaa qalalana odaya jaamacad xamar dhig jirin mar asaasay ninkaas waxa weeyaan oo xog Soomaaliyeed far badan haya dadka aan raybo ka mid yahay inaan la kulmo ima suurto ana qofka qorshe uu leeyahay shaqo uu leeyahay in waqti badan aad siiso u baahan yahay dadka qaar waxa weeyaan waa yeel waaye waa laba shay way ka rabaan in jawgiga lagu wareysan la in la diyaariyo in la ikraamo la karaameyn waa loo baahan yahay marka
annagana dad ta'liifka fursad u gacan bannaan ma nihin iska xoogsato waxa weeyaan camal dawaam la ka shaqeeyana marka waxaan jaanisku waa nagu yaraa fursad waad bay noogu yaray taas ay tahay wax baan u guureynay si u soo baxo masdarkan cilmiga ana kitaab inuu soo baxo qiimo badan ay ku fadhidaa guud ahaan waxaan halkan ku soo gabagabeynaynaa waraysi gaar ah oo TV-ga Universal gaaraan barnaamijka bandhiga uu siiyay Sheekh Aadan Sheekh Saciid waa bare qoraa iyo taariikhyahan ku nool magaalada Baydhabo buugaagta uu qoray waxa ugu dambeeyay oo dhawaan Baydhabo lagu soo bandhigay buug uu kaga hadlayay sooyaalka gaar ahaan gumaysigii Soomaaliya siiba Talyaanigii wuxuu ahaa bandhig aad u qurux badan oo kumanaan dadweyne oo reer Baydhabo ay ka soo qayb galeen waxaana u mahadcelinayaa kameramaanada sharafta leh barnaamijkan qaybta weyn ka qaatay Musharraf iyo Siraaji iyo Absa Sheekh Aadan adna ku mahadsan tahay sidaad noo sharaftay insha Allah thank you adiga kameramaanada insha Allah jazakumullahu khayr